bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa talaado ay taariikhdu ku beegan tahay 18 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 qodobada wararka maanta aan idiin hayno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo oo go'aan ka gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kadib markii ay diideen shirka Dhuusamareeb 3 inay ka soo qayb galaan waxaan wararkeena ku soo qaadan doonaa maanta wararkii ugu dambeeyay ee shirka Dhuusamareeb oo saacadaha soo aadan furmaya xilli ay maqan yihiin Dani iyo Madoobe wasiir ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo lagu toogtay magaalada Jowhar iyo ammaanka magaaladaas oo faraha ka baxay taliyihii xabsiga dhexe oo sabab la yaab leh shaqadii looga joojiyay kadib weerarkii ka dhexdhacay gudaha xabsiga dhexe Somaliland oo war la yaab leh ka soo saartay xiriirka Imaaraadka iyo dawladda Yuhuudda xog cusub oo ku soo korortay Cabdiraage oo bilaabay ole ku wajahan beesha caalamka iyo ujeedka oo la ogaaday iyo Taiwan oo si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland waa hagaag saaxiibayaal intaas adaawatan waxay ahaayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn iminkana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka ee joogtada ah ee alaab halkan aan soo gelino idinkuna waxaad ku mahadsantihiin daawashada muuqaaladeena iyo warbixinadeena mar kale soo dhawaada muuqaalkan aad daawanaysana like noo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa uu go'aan ka gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kadib markii ay shirka Dhuusamareeb 3 diideen inay ka soo qayb galaan labadaasi hogaamiye madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan kula yeeshay magaalada Dhuusamareeb madaxda dawlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoo go'aan uga gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo iyagu qaadacay inay ka qayb galaan shirka ayaana si faahfaahsan waxa looga hadlay arrimo la xiriira hanaanka doorashada waxaana kulankaasi ka qayb galay guddiga farsamada ee kabaaraandigida talooyinka la xiriira hanaanka doorashada inkastoo xubnaha guddigan shirka la qaatay madaxda aanay ku jirin xubnihii matalayay maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu go'aansaday in uu shirka maanta si rasmi ah u furmo iyadoo oo aan la sugi doonin madaxweynayaasha Dani iyo Madoobe oo iyagu markaasi ka cagajiidaya inay ka qayb galaan shirkaasi ilo ku dhowdo madaxweyne Farmaajo ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu si aad uga carooday tallaabada uu qaaday madaxweynaha Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadan qoraalkii uu soo saaray ee uu ku codsanayay in uu markaasi beesha caalamka ay qayb ka noqoto shirka Dhuusamareeb 3 madaxweyne Farmaajo ayaana arrinkaasi si weyn u cambaareeyay waxa uu sheegay in shirka uu furmi doono isla marhaantaana aan loo dhutin doonin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo iyagu markaasi diiday shirkaasi xilli madaxweynaha Jubbaland uu dalka ka maqan yahay Puntland hore ayay u qaadacday shirkan iyada oo shuruudo ku xirtay balse waxa la filayaa in maanta si rasmi ah uu shirkaas u furmo maadaama madaxweyne Farmaajo uu go'aankaasi qaatay guddiga farsamada ayaa waxa ay markaasi ka warbixiyeen kulankii ay madaxda la qaateen xalayto iyagoo sheegay in haatan meel fiican ay wax marsiinayaan waxa wali laga cabsi qabaa in uu hakad ku yimaado shirka Dhuusamareeb 3 xilli Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay ka maqan yihiin magaaladaasi balse maanta ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu go'aan lama filaan ka qaato shirkaasi isagoo doonaya in uu shirkaasi toos u furmo maadaama madaxweynaha Soomaaliya ay haystaan xaalado siyaasadeed oo ugu horeyso inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub maadaama dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah waxa uu doonayaa in markaasi uu markale dib u soo laabto madaxweyne Farmaajo dad ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa ay noo sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu wado kulamadii ugu dambeeyay ee lagu furayo shirka Dhuusamareeb 3 lamana oga natiijooyinka iyo sida uu noqon doono shirkaasi dhinaca kalena wasiir ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle ayaa lagu toogtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in magaaladaas dhexdeeda lagu toogtay wasiir ka tirsanaa maamulkaasi wasiirka beeraha ee dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cabdiqaadir Abuukar Karaani ayaa la sheegay inay kooxo hubaysan dileen xilli uu ka soo baxay salaada cisha ee xalayto wasiir Cabdiqaadir Abuukar Karaani
oo dhowaan xilkan loo magacaabay ayaa lagu dilay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle sida ay goobjoogayaal warbaahinta u sheegeen. wasiirka ayaa waxaa toogtay kooxo ku hubaysnaa bastoolada kuwaas oo goobta isaga baxsaday markii ay dilka u geysteen wasiirkaasi sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan Hirshabelle. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Hirshabelle ayaa waxa ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay waxa ayna durba bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii markaasi dilka fuliyay. dhinaca kale maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay dilka loo geystay wasiir ka tirsanaa maamulkooda. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay dilka Jowhar loogu geystay wasiirkii beeraha ee Hirshabelle marxuum Cabdiqaadir Faarax Axmed kaas oo markaasi ka tirsanaa xildhibaanada Hirshabelle. gudoomiyaha oo ku hadlayay magaciisa kan gudoonka magaca xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad goboleedka iyo shacabka waxa uu tacsi tiiraanya leh u diray marxuum Cabdiqaadir Faarax oo kamid ahaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana dhowaan loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha oo kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda Kulmis ee degmada Jowhar. gudoomiye Sheekh Cusmaan ayaa yiri waxaan tacsi tiiraanya la qaybsanaya qoyska ehelka asxaabta iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabelle geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Axmed waxa uuna alla uga baryay inuu jannatul firdawsa hoygiisa ka dhigo samari iimaan ee dadkii uu ka geeriyooday ka siiyo. ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabelle uga digay inay al-shabaab ka geystaan deegaanadaasi dilal qorshaysan. magaalada Jowhar ayaa haatan waxa uu ammaankeedu yahay mid faraha ka sii baxaya mar hadiiba wasiirro ka tirsan maamulkaasi lagu dhex tooganayo caasimadii maamulkaasi. taliyihii xabsiga dhexe sabab la yaab leh ayaa shaqadii looga joojiyay kadib weerarkii ka dhacay xabsigaasi. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqada ka joojiyay taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar Gaashaanle Sare Aadan Xuseen Kulmiye isagoo si kumeel gaar ah taliye ugu magacaabay xabsiga dhexe. afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Cabdiqani Maxamed ayaa sheegay in shaqo joojinta ay timid kadib dhacdadii toddobaadkii hore ka dhacday xabsiga dhexe oo ahayd dagaal dhex maray ciidamada ilaalada iyo qaar kamid ah maxaabiista oo la sheegay in uu hub gacanta u galay. sareeye guuto Daahir Cabdulle Raage ayaa si kumeel gaar loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha xabsiga dhexe. 11kii bishan Agoosto ayaa xilli galab ah waxa dagaal uu ka dhex bilowday gudaha xabsiga dhexe waxaana taliska ciidanka asluubta uu sheegay in qaar kamid ah maxaabiista oo hub gacanta u galay iyo ciidamada ilaalada xabsiga ay dagaalameen isla markaana dagaalkaas ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 15 ruux oo isugu jiray ciidamo iyo maxaabiista. hore ayaa loogu dhawaaqay guddi loo xil saaray inay soo baaraan dhacdadaasi sida ay markaasi sheegeen saraakiisha ugu sarreysay ee dowladda Soomaaliya. markaana waxaynu eegeynaa xog ku saabsan Cabdi Cali Raage oo bilaabay olole ku wajahan beesha caalamka iyo ujeedada oo la ogaaday. taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka mudane Cabdi Cali Raage ayaa bilaabay olole ku aadan sidii beesha caalamka looga gadi lahaa qorshaha madaxweyne Farmaajo ee doorashada. sida aan xog ku helnay la taliyaha madaxweynaha ayaa sabtidii la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo u faahfaahiyay shaqooyinka ilaa haatan u qabsoomay guddiga farsamada. Cabdi Cali Raage oo dhowaan loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka ayaa ka shaqeynaya sidii loo yareyn lahaa culayska beesha caalamka uga imaanaya dowladda Soomaaliya ee ku aadan waqtiga kala guurka ah ee dalka. Raage ayaa lagu tilmaamaa farsamayaqaan ee galaangal badan leh waxa uu kamid ahaa gudiyadii farsamo ee ka soo shaqeeyay doorashadii ee dadbaneed ee sanadkii 2016 dalka ka dhacday. bishii Abriil ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii Axmed Madoobe uu xilka ka qaaday Cabdi Cali Raage oo ahaa la taliyihiisii sare ee arrimaha siyaasadda. xilka qaadistaas ayaa salka ku haysay howlihii doorashada Jubbaland waxaana Mr. Raage kamid ahaa raggii ugu horeeyay ee ka hor yimid Axmed Madoobe. ugu dambeyntiina Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland. xukuumadda Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis cusub waxa ay uga furatay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Muuse Biixi kaas oo xafiis diblomaasiyadeed oo ay ku shaqeyn doonto Taiwan. hirgelinta xafiiskan ayaa yimid kadib markii ay dhowaan heshiis rasmi ah ay kala saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday. sidoo kale munaasabad lagu daahfurayay xafiiska ay Taiwan ka furatay Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland. sidoo kale qadka internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda Taiwan wuxuuna sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay furitaanka xafiiskaas.
dhankooda wasiirada Somaliland ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in xafiiskan uu sii xoojin karo xiriirka ka dhaxeeya Taiwan iyo Somaliland. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan dawladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ay si weyn uga soo horjeesteen xiriirka dhexmaray maamulka Somaliland iyo jasiiradda Taiwan. dawladda Soomaaliya ayaa iyadu si adag u cambaareysay xiriirada kala duwan ee Taiwan ay la soo sameynayso maamulka Somaliland, maadaama Somaliland ay qayb ka tahay Soomaalida inteeda kale, isla marhaantana dawladda Soomaaliya ay tahay dawladda saxda ah ee dalka ka jirta. horey waxaa sidoo kale si la mid ah hadalka ka soo yaray dawladda Soomaaliya u jeediyay maamulka Somaliland dawladda Shiinaha, iyaga oo sheegay inay faragelin ku hayaan dhulweynahooda, maadaama Shiinuhu aaminsan yahay in jasiiradda Taiwan ay qayb ka tahay dhulweynaha Shiinaha. balse Somaliland iyo Taiwan ayaa iyagu waxay ku adkaysanayaan inay markaasi xiriirkooda sii wataan, inkastoo ay yar yihiin dalalka aqoonsan jasiiradda Taiwan. guud ahaan daawadayaal wararkii oo maanta oo talaada taariikhdan ku beegan tahay 18 bisha 8 ee Agoosto 2020 aad kala socoteen channelka xulashada wararka. intaas ayuu ku dhan yahay wararkan wararkooda xigeentan mar kale ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.